wanaagsan aqyaarta hawada aan ku saaxiibnayo idilkiinba meel walba aad joogtaan waxaan leenahay waqtiga ay idin wacnaado dhammaantiinba muuqaalka la gareeya cid walba muuqaalka la gareeyso waxaan Allah subhanahu wa ta'ala aan kaga baryeynaa umuure leedahay ilaahay inuu u saalo ilaahay subhanahu wa ta'ala ana awlaada uu barakeeyo inta awlaadonkaana ilaahay awlaad baari ha siiyo inta gurdoonka ana gur wanaagsan iyo mustaqbal wanaagsan ee baweyna ha siiyo qof walba muuqaalka leegta ku qabta waxaan Allah subhanahu wa ta'ala aan kaga baryeynaa dambigood iyo dambiga waalidkood inuu eeba dhaafo ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku azuuma jannatul firdaws la'ala dhammaantiinba muuqaalka leegta ku qabta waxaan rabbi subhanahu wa ta'ala aan ka baryeynaa qof walba muuqaalka la gareeyo inuu ilaahay ka hareer mariyo cudurka coronavirus oo hadda dhibaato baan ku haya adduunka waxaan dhammaanteen ilaahay subhanahu wa ta'ala aan wada weydiisanaynaa in ummadda Soomaaliyeed uu ka dulqaado cudurkaasi xilli ummadda Soomaaliyeed dhibaato culus iyo waliba kurba iyo culays kale uu haysto qaraxyo iyo dhibaatana ay u dheeriyiin waxaan Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah ilaahay dhammaanteen baan ka baryeynaa ummadda Soomaaliyeed cudurka coronavirus ilaahu hareer mari dalka kuwa jooga iyo waliba dibadda waxaan dhammaantiin aan leenahay muuqaalka la gareeyo xaasidka waxaan leenahay wa min sharri xaasidin ida xasad al xaasid la yaflah bi idni Allah al-karim waxa ku dambeeyo hoog iyo qasaaro maxaa yeelay xaasidka faa'iido ma laha waana mid ka qarbay ummadda Soomaaliyeed waxaan rabbi subhanahu wa ta'ala aan ka baryeynaa xaasidiinta in gurigooda hoog iyo ba uu ka tuso bi idni Allah al-karim dhammaantiin ba muuqaalka la gareeyo fadixad weyn ayaa hareysay madaxweynaha Soomaaliya iyo qoyskiisa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kadib markii amar madaxweyne laga qaaday isbitaalka Martini qalabka neefsashada oo yaalay isbitaalkaasi Martini taas oo keentay X xildhibaan ka tirsanaa maamulka Hirshabeelle isla markaana ahaa wasiiru dawle ka tirsan Hirshabeelle uu ugu geeriyooday isbitaal Martini dayacnaad xagga caafimaadka kadib markii qalabkii neefta ee ku xirneed loo qaaday xarunta madaxtooyada Soomaaliya kadib markii sida la sheegay marwada koowaad ee madaxweynaha Seenab Cabdi Macallim uu ku dhacay cudurka coronavirus madaxweyne Farmaajo uu iskaga baqay cudurkaasi inuu haleelo taasna ay keentay qalab isbitaalka Rajab Tayyib Erdogan X Digfer oo ugu daaqay isbitaalka Martini oo ahaa qalabka oksijiinka qaado si dhaqso ah lagu qaado xarunta madaxtooyada lagana qaado isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho warkaasi waxa baahiyay wariye ka tirsan idaacadda Goobjoog ee magaalada Muqdisho kaas oo baraha bulshada ku qoray in madaxweynaha Soomaaliya uu qaatay qalabka oksijiinka ee la keenay isbitaalka Martini waxaana wariyahaasi lagu magacaabaa Cabdicasiis Gurbiyo wuxuuna Gurbiyo uu ahaa wariye active ah isla markaana ka soo baxay jaamacad ku taal dalka Masar gaar ahaan jaamacadda ugu weyn dalka Masar qaybta saxaafadda waana wariye aqoon buuxda u leh dhanka baahinta wararka waana agaasime ku-xigeenka idaacadda Goobjoog ee magaalada Muqdisho laakiin madaxweyne Farmaajo oo ka carooday warka la baahiyay iyo waliba qalabka neefsashada ee madaxweynaha iyo madaxtooyada sida qasabka ay xatooyada ay u qaateen uu baahiyay ayaa waxa amar uu ku bixiyay in la xiro wariye Cabdulcasiis agaasime ku-xigeenkii radio Goobjoog ee magaalada Muqdisho laakiin maanta fadixadii ayaa banaanka timid kadib markii la arkay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cawad iyo sidoo kale ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed oo qaadaya qalabkii neefsashada kana soo bixinaya xarunta madaxtooyada Soomaaliya kaas oo lagu celiyay galabta isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho kooxda warbaahinta u qaabilsan Villa Soomaaliya iyo waliba koox kale oo lacag la siiyay ayaa durbadiiba ka bilaabay social media inay naqdiyaan ama warbaahinta qaybta social media ka bilaabay inay naqdiyaan warka ku aadan in qalabkan laga soo bixiyay madaxtooyada ee neefsashada iyo waliba sariirta ee ku xirneed ay tahay qalab loo wado isbitaalka loo bareefid ah ku yaal magaalada Muqdisho kaas oo lagu daaweynayo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya dhanka kaliya ka xanuunsan sida ay sheegeen kooxda lacagaha ay siiso madaxtooyada laakiin xaqiiqda warka wuxuu yahay in xildhibaan Mahad Cawad gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka iyo sidoo kale ku-xigeenka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed in maanta barqadii madaxweynaha Soomaaliya uu wacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaas oo ceeb weyn la naqatay qalabka uu ka soo qaatay isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho oo saacadihii ugu dambeeyay warbaahinta si weyn ay u hadal haysay wuxuuna ka dalbaday labadan mas'uul iyo xubno kale oo baarlamaanka ka tirsan qalabka in laga qaado xarunta madaxtooyada Soomaaliya isla markaana lagu celiyo isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho madaxweyne Farmaajo ayaa dalbaday qalab xagga neefta waa oksijiinka kana dalbaday dalka dibadiisa gaar ahaan isku taga Imaaraadka Carabta iyo waliba dalka Qatar laakiin waxa la sheegay Qatar inay hadda u soo dhiibayso 3 xabo oksijiin ah taas oo la dhigi doono xarunta madaxtooyada waxaana taas ay keentay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si durba uu u celiyo qalabkii oksijiinka ee ka soo xadeen xarunta isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho qaabka qasabkana laga soo qaaday taas oo lagu talagalay dadka dhibaataysan ee uu soo rito cudurka coronavirus ee shacabka ah in lagu daaweeyo laakiin waxa muuqata in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi
farmaajo dhowr milyan oo shacab ah uu ka naf jeclaystay asiga isla markaana uu qaatay qalabkii halkii sariir iyo weliba xabadii neefta ee taalay isbitaalka martiini isla markaana uu geystay xarunta madaxtooyada ee magaalada muqdisho waxaase nasiib darrada ugu weyn ay tahay wariyihii baahiyey xogta oo helay xogtan in madaxweynaha Soomaaliya uu amray in la xiro kaas oo hadda xaalad caafimaad qudhiis ay ku haysato xabsiga weyn ee magaalada Muqdisho madaxweyne Farmaajo ayaa wuxuu hore u sheegan jiray inuu yahay qof aaminsan xuriyadda hadalka laakiin hadda waxa muuqata hadii war sax ah asiga laga sheego oo gubayo inuu amrayo suxufiyiinta in la xirxiro isla markaana lagu tuuro gaal shire waana dhaqanka lagu yaqaan qofka siyaasiga ah markuu ku fadhiisto kursiga madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka hor intuusan naqanin madaxweynaha Soomaaliya wuxuu iska dhigi jiray shakhsi daacad ah wadani ah laakiin in badan oo bulshada kamid ah gaar ahaan inta aqliga saaxiibku ah waxay ogeed Farmaajo wajigiisa runta ah oo hadda soo baxay waxaana wajigiisa runta uu yahay dib u milixso sawirada madaxweyne Farmaajo wuxuu madaxweynaha jeclaystay inuu tin abuurto isla markaana bidaarta uu qariyo halka dad badan oo hareerihiisa ku dhaqan gaar ahaan xarunta madaxtooyada iyo hareeraheeda ee baahan yihiin lagana yaabo saddexda waqti inay cunaan hal waqti madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo walaalihiis iyo waliba qoyska marwada madaxweynaha Zainab Cabdi Mucallim waxay ku takrifalaan hantida dadweynaha ayadoona isla markaasi daaro waaweyn ka dhistay dalalka Kenya iyo sidoo kale Imaaraadka Turkiga iyo Qatar waxaana taasi ay muujinaysaa khiyaanada iyo dhagarta madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu kaga dugan yahay dhammaan madaxweynayaashii Soomaaliya soo martay nin jeclaysi iyo qabyaalad waana nin aad u cuqdad badan isla markaana qofkii hal maalin isqabtaan weligiis u haya cuqdada waxaana sidoo kale madaxweyne Farmaajo uu yahay shakhsi si weyn u jecel faanka iyo beenta iyo huhaada wuxuu hadda ku darsaday inuu xado qalabka lagu talagalay dadka masaakiinta waxaase social media gaar ahaan qaybta Facebook goor dhaweed qabsaday sawirada Mahad Cawad gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka oo si weyn loo amaanayo laguna amaanayo talaabada oo geesinimada ay ku aadan in dib uu soo celiyo qalabkii oksijiinka ee isbitaalka Martiini laga qaatay la geeyay madaxtooyada Soomaaliya si madaxweynaha Soomaaliya iyo marwadiisa ay kayd ay ugu dhigtaan ayadoona hadda la soo sheegayo in marwada madaxweynaha ay ka soo kabanaysa xaaladda caafimaadkeeda Zainab Cabdi Mucallim laakiin waxa madaxweyne Farmaajo qudhiisa uu ka cabsi qabaa in xanuunka ku dhacay marwadiisa inuu haleelo taas oo keentay in gurmad degdeg ah uu weydiisto dalalka Qatar iyo Imaaraadka laakiin Qatar ayaa la sheegay in kalsooni weyn uu ka haysto madaxweynaha ballanqaad u samaysay 24 saac gudahooda inay u soo dhiibi doonto ilaa 3 oksijiin ama 2 oksijiin oo la dhigi doono xarunta madaxtooyada waad ogaan doontaan warkaan idin sheegayo Brito markii Qatar ay keento qalabka oksijiinka kaas oo la geyn doono xarunta madaxtooyada laguna bedeli doono qalabka hadda lagu soo celiyay isbitaalka Martiini kolkii horena xarunta madaxtooyada Soomaaliya loo qaaday halkaasi oo madaxweyne Farmaajo amarkiisa lagu qaaday waxaase muhiim ah in madaxweynaha Soomaaliya uu amar ku bixiyo in la soo daayo wariyaha sida dulmiga xaq darrada ugu xiran xabsiga dhexe Muqdisho kaas oo baahiyay xogta ku aadan in qalab oksijiinka oo yaalay isbitaalka Martiini la geeyay xarunta madaxtooyada walow maanta ay cadaatay qalabkii markii la arkay ayadoo laga soo saarayo albaabka madaxtooyada ayna soo saarayaan gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Mahad Cawad sida ay muujinayaan sawirada social media la wareejiyay idinkana idin muuqdo dhamaantiin bi Ilaahay aydan xifdiyo Ilaahay umuraha leedin hasalo Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan faj'al umurana wa umur al-muslimina kullaha sahla Ilaahay dhamaanteen waxaan ku weydiisanaynaa gargaarkaaga kaalmadaada iyo naxariistaada waxaan kugu weydiisanaynaa magacaada wanaagsan Allahu la ilaha illa huwa ar-rahmanu ar-rahim al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir al-khaliq al-bari al-musawwir lahu al-asma'u al-husna ya Allah ilaahu dhamaanteen gargaarkaaga kaalmadaada iyo naxariistaada u baahanaa ilaahu dhamaanteen inoo gargaar oo ilaahu dhamaanteen inoo kaalmay oo ilaahu dhamaanteen bayna xifdi ilaahu dhamaanteen waxaan ka maangaleynaa cudurka adduunka wareeriye corona virus ya rab ilaahu wadaan ka maangaleynaa ilaahu wadaan maantaada ku jirnaa ilaahu rabbi raxmaan dhamaanteen bayna amaanso ya rab ilaahu dhamaanteen waxaan ku weydiisanaynaa gargaarkaaga iyo kaalmadaada dhamaanteen umuura leena ilaahu umuuraha leena ilaahu inoo sahla Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan faj'al umurana wa umur al-muslimina kullaha sahla ilaahu dhamaanteen awlaadi inoo xifdo ilaahu awlaadi inoo barakee kuwa diinta fahman ilaahu ka dhig ya rab ilaahu wadaan ku baryayna ilaahu inta awlaadoonkaan ilaahu awlaad baari asi ilaahu inta guurdoonka ana guur wanaagsan iyo mustaqbal wanaagsan ya rab ilaahu si dhamaanteen ilaahu gargaarkaaga kaalmadaada u baahanaa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
إله وحن كمان قلنا عذرك أدونك وريري اللهم إنا نعوذ بك من الكسر والجند والجدان ومن سيء الأسقار وصلى اللهم على نبينا محمد وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب إياك نعبد وإياك نستعين الرحمن الرحيم إله نحرست قديم الدقال عن هذا